ubax iyo Blacksea ee degmada Howlwadaag lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda oo magaciisa lagu soo koobay Caanageel. Sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa rag horey uga soo goostay Al-Shabaab haatanna uu ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda qaybta dharcadka. Qaraxa ayaa la sheegay inay fulisay haweeney. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abuukar Maxamed. ugu yaraan 2 qof oo mid ka mid ahaa taliye kooxeed ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay, 2 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen oo midkood ahaa ilaaladiisa kadib qarax ismiidaamin ah oo lagu bartilmaameystay ciidamo ka mid ah kuwa nabad sugidda ee loo yaqaan dharcadda oo ku sugnaa wadada Sodonka meel u dhow isgoyska Blacksea degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ay fulisay haweeney walxaha qarxa isku soo xirtay oo sida la sheegay isku duubtay taliyaha isaga oo wadada maraya iskuna qarxisay, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga. dad goobjoogayaal oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada amniga dawladda ay goobta gaareen, lamana sheegin ilaa iyo hadda dad loo qabtay qaraxa inkastoo ay goobta baaritaano ka sameeyeen. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in ay la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya, isla markaana dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada ee 2 ka mid ah ilaaladiisa. dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday dable xooga dalka Maxamed Xuseen Cilmi oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dawladda oo loo haystay in uu kufsi u geystay Farxiyo Cabdishakuur Bootaan oo 4 jir ahayd. kufsiga ayaa 14 May ee sanadkan ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdulaahi ayaa sheegay in xukunka maanta lagu riday askarigan uu fariin u noqonayo in fal dambe oo kufsi ah uusan ku kicin qof ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo shacab, iyadoo arintani ay ku soo aadayso xilli muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada